falaad u falxun ayaa maanta hareeyay gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde gaar ahaan qaybta imaatinka caalamiga ah international arrival halkaas oo ay weerar ku qaadeen ciidan dharcad ah oo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya. ciidanka ayaa burburiyay qaybta dadka ajnabiga ah iyo dadka baasaboorada shisheeyaha wata laga siiyo dalku galka laguna hubiyo. sidee u dhacay weerarku maxaa sababay? sida ay noo xaqiijiyeen ilaa iyo 3 xubnood oo kala duwan oo ka mid ah howlwadeennada garoonka. diyaaradda Qatar Airways ayaa shalay keentay dad ajnabi ah kuwaas oo la rabay in dalka lagu soo geliyo inay yihiin YouTubers. howlwadeennada laanta socdaalka ayaa ku dhagay. sababta ay ugu dhageen ayaa lagu sheegay inay ahayd inuu dhawaan soo baxay amar ah in aan dalka lagu soo fasixin xirfadlayaasha ajnabiga ah ee ku shaqaysta aaladda muuqaalada ee YouTube kadib markii uu dhawaan nin Raashiyaan ah sawir khaldan ka bixiyay Soomaaliya taas oo dadka Soomaalidu ay si weyn uga falceliyeen. gabar fanaanada ayaa la sheegay inay hawshan ku lug lahayd markii la isku qabsaday ajnabigan la socda diyaaradda Qatar Airways oo dadka qaarkii ay sheegayaan in aanay YouTubers ahayn ayaa waxa yimid ciidanka nabad sugidda ee garoonka kuwaas oo xoog ku wata ajnabigii. handadaad iyo gacan qaad ayaa shalay ka dhacay gudaha mar kale ayaa samaanta xaalku cirka isku tolay. waxaa la sheegay in maanta ilaa iyo 20 ka mid ah ciidanka nabad sugiddu yimaadeen qaybta soo degista caalamiga ee garoonka oo ah halkii uu shalay buuqa iyo gacan ka hadalku ka dhacay. kooxdan waxaa ku jira raggii shalay xooga ku wata ajnabiga. maanta waxaa la sheegay inay sidii shalay rabeen inay dad kale oo ajnabiya kala baxaan garoonka kuwaas oo la socday diyaaradda Turkish Airlines. dadkii shalay iyo kuwa maantaba waxay ciidanka nabad sugiddu rabeen inay la baxaan iyagoo aan la marin habraacii saxda ahaa. waxaa la sheegay inay durbo bilaabeen inay handadaan shaqaalaha laanta socdaalka iyagoo raba inay dadka xoog kula baxaan. kooxda laanta socdaalka ayaa la sheegay inay ku doodeen in shaqada la macaamilka soo galootiga inay iyagu mas'uul ka yihiin oo aanay waxba ka qusaynin nabad sugidda waxaana ay ka dalbadeen ciidanku inay ka dhex baxaan arrinta. laakiin waxaa loogu jawaabay weerar iyo gacan qaad markaasoo iyaguna iska caabin sameeyeen. ilaa 3 qof ayaa la sheegay inay ka dhaawacantay shaqaalaha garoonka halka ciidankana uu ka dhaawacmay hal askari. waxaa dagaalkani uu burburiyey qaybta fiisooyinka ee garoonka Aadan Cadde. xilliga uu dagaalkani dhacay waa xilligii ay soo degtay diyaaradda Turkish Airlines. qof ka mid ah dadkii sugayay in loo adeego balse uu dagaalkani saameeyay waxa uu sheegay inay lama filaan ahayd inuu arka dhaqan noocan ah oo ka dhacaya halkii la rabay inay ugu ammaan iyo xadaarad badnaata dalka. ciidanka nabad sugidda iyo garoonka Aadan Cadde. ciidanka Nisa waa ciidanka qura loo ogol yahay inay hub la galaan qaybaha garoonka. waxay ka mid yihiin 3 ciidan ee ku qoran ilaalinta garoonka. waxaa kaloo weheliya ciidanka booliiska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. falka maanta ka dhacay garoonka oo sawir xun ka bixinaya xaaladda dalka ayaa dhinaca kala muujinaya habka liidata ee ciidanka nabad sugiddu ula falgalayaan qaybaha bulshada dhowrkii sano ee la soo dhaafay taasoo aad uga fog sharciga ciidanka iyo qaynuunka dalka. waxaa la sheegay in qaar ka mid dadkii sugay in loo adeego oo la hubiyo baasaboorradooda ama fiisayaal la siiyo inay qaarkood iska gudbeen oo ay ka baxsadeen dagaalka iyagoo aan cidna u adeegin. taliska Nisa ayaan weli wax wara ka soo saarin weerarka ay ciidankooda ku qaadeen shaqaalaha waxda socdaalka iyo jinsiyadaha laakiin cabsigelinta maanta ka dhacday garoonka ayaa sababi karta inuu noqdo meel aan la isku aamini karin waqtiyada soo aadan iyo inay handadaadaasi keento in ajnabi badan dalka la soo geliyo iyadoo aan la soo marin marinkii saxda ahaa. waa markii koowaad oo dhacdo noocan ay ka dhacday garoonka tan iyo markii dib loo howlgeliyay. maxay kula taadiga